dadku waxay badankooda qaarkood baraha bulshada ku qorayaan Sakariye Heeko diin baa kala dhex gashay sababahaas muranka keenay waranka ay u soo goosteen sidaas lagu xidhay Sakariye taasi ma jirto jeelka maanin hoyan dadka qaar baa moodayeen in la soo damintay awgore waa amsay talo miya la mustafii oo dadka waxaan sheegaynaa maxay nuugan kartaa shirkadu Sakariye soo wadaa waa cid kale oo shirkada wadu la socdaa taaqodeeda la isweydiinay marka waxay nuga haysatay in maxaad u hadashay mali waxaan wanaagsan daawadayaal waxa ila jooga Sakariye Beeldeeq Sakariye soo dhawow dhawaan waa lagu xidhay magaalada Burca lagu xidhay dadkuna in badan hawee xarigaaga waxyaalo badan bay sababeeyeen bal waxaad nooga warantaa xarigaagii iyo waxyaalo lagu xidhay Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh reer Burco iyo guud ahaan Soomaaliland baan salaamayaa khayr iyo barako baraqan u rajeynaya insha Allah taala oo run maalin dhawto 24 bisha waa in la xidhay markii hore waxa aynu tagnay oo yeermo naga timi CID-da waraysi baan naga qaadeen waxay sheegeen in ay shirkadda la yiraahdo Heeko ay ina soo dacweysay waxyaabaha inagu soo dacweysayna laba qodob ugu muhiimsanaa koow waxay yiraahdeen kicin dadweyne qodobka labaadna waxay yiraahdeen iska hor keen anaga iyo macaamiishayda labadaas dacwad bay la akhriyay su'aal la iga weydiiyay waxaan ka jawaabay su'aalahana waxaan sheegay in aanan kicin dadweyne anigu aanan shaqal ku lahayn xuquuq dastuuriya aan waxa weeye ka hadlayay oo dastuurku damaanad qaaday xeerarka qaranka waxyaabihii kale ee wadi xakmid ahaa inaan cadeeyay in aanan shirkadaas iyo macaamiisheeda marna iska horkeenin in aanan shirkada ishayn in aanan shirkada mulkiyeeda shaqaaleeda aanan ishayn in waxa weeye xeerarka iyo dastuurka qaranka iyo waxa weeye doodayda ay tahay dood sharciya oo dastuuriya in ay Burco iyo reer Soomaaliland ba guud ahaan kootada mamnuuc tahay monopoliga uu yahay shay mamnuuca dastuurka qaranka Soomaaliland ee dalkeena iyo xeerarka qarankeenuba ay damaanad qaadeen suuqa xorta ah intaan baan u sheegay jeelka maanin hoyan dadka qaar baa moodayeen in la soo damintay may xorriyadii dib baan u helay iyadoo complete ah oo sax ah Heekana khaladkeedii waa la siiyay cid sharci darro baan u xidhanay Sakariye waxa la arkay adigoo ka hadlaya Heeko marar badan oo baraha bulshada kaga hadlaysay leed xor ah Burco u baahan tahay adigii Heeko kale mararka qaar waxa jirtay lacag aad ku qabsateen oo baraha bulshada iska soo jawaab jirteen dadku waxay badankooda qaarkood baraha bulshada ku qorayaan Sakariye Heeko diin baa kala dhex gashay sababahaas muranka keenay waranka ay u soo goosteen sidaas lagu xidhay Sakariye taasi ma jirta shirkadda sidii muuqaalkaygii ugu horeysay markii horeba aan sheegay Heeko leerkayga waxay goosatay iyadoo aan diin ugu lahayn iyadoo waxba lacag ugu lahayn ay goosatay leerkayga waana sidii Heeko waa run shirkaddu waxay suuqa gelisay oo waxa weeye dad badan ay moodayaan in ay shirkaddu deyn ugu leedahay shirkaddu wax deyn ay ugu leedahay ma jirto waana cadeysan lahayd بدوي داش وراقة فوتشرية والأركي بالميديا كده بعضي هدي أي دعوة دي تهاي دعوة ده العقتها العقل ويا لنكرا العقت هو شيء عادي دين تلسكية شا دي ويكون دعوون لهيد دعوة ده كم مقال هيدين العقل نقول هذا هاي دعوة دي على جارك هاي العقل نقول هذا هاي مركها واح مجرتو هيك وحي نوجه ستون محاضر هذا الشيء محاد محاولتك وحدتك حقوق شيء كسا إن هالكنا وحكي عدنا يدا شركة ما هيستو شركة واحد سوق هذا بيصير مركي عن سعودة السنة أنا ميديا كهالي يعني لي وح الله عليه وح العقل يقول هذا مشتو مركز شركة سوق هذا بيصير السماء الحكومة ما هذا مروه نما عنين ما قبطان مركز دنبي أنا واحد دوده هيجي إلا يه ما أنت إلا يه مكان دوده هيجي أندوي دوده شرعي دوده دستورية حقوق دستورية الراديو إن أن رير برعو يرير سمالان يحكومة ذا يشروع ذا يدك إنستيوشن ذا الدولة نمدي ذا أسلفه إنه إن أي حوي سوق كوتا ذاهي بيعني مينس سوق دنا هذا إن أنا حوي حق هين إن الدستور شبين تهاي إن شرعية حوي ملا قد عاية تهاي إن يبرع سوق حرب بهان تهاي أنت أصلا بكهلي
sakariya waa lagu xidhay xadhigga kadib dadkii waxa weeye sidii baraha bulshada wax uga soo wadaagi jirtay ama wax weeye baraha bulshada dad badan oo kula socday baa jira aad isku kula socoteen hadda waxaad moodaa inaad adigu dhankaaga gaabis ka yimi oo aanad ilaa hadda meel wax maraya dadkii aanad u soo bandhigin sakariya aamusnaantaada maxaa ku daahan dad badan baa isweydiinayay ma aamusayno waxaan ka hadlaynaa inagu cid gaar isma hayno anu cid gaar isma hayno shirkad isma hayno cid gaarana oo aan sheegi karaa ama ma garanayo haddaan iyagii dhinaceeda ka jirin anigu waxaan laga aamusi karaa maaha cidna nima aamusi karto waa run dacaayadaha yaraa garanaysaa rumorist baa yara jira oo garanaysaa suuqa wareegayay oo ah gura u aamusaye talow miyaa la mustafiyey oo dadka waxaan sheegaynaa maxaynu geyn karaa dee qiimaha maxaa mustafayn karaa ma u jiraan badde ilaa reer Burco iyo reer Soomaaliland isla fahanno in suuqa xor noqdo oo waxa weeye waxaan suuqani oo waxa weeye xaqnimadiisii iyo saxnimadiisii ku laabto oo tartanka yimaado waxaan u aamusnay ugu weynay aan oran kara waxa weeye qofka marka lagu waxa weeye khalad tirsado oo aan garanaysaa uu awood loo isticmaalayo si khaldan waxa weeye awoodii looga faa'iideystay alista wuxuu yara baahan yahay recovery inuu yara nasto caadifadu iyo waxa weeye degdeg ma fiicna qarib waxaan ka u sheegayaa nasiinaan ku recovery baan ku soo qaadanay magaras waxaan sheegayaa reer Soomaaliya reer Burco gaar ahaan reer Burco dadkii gabta ahaa xariirta ahaa gobonimada ahaa ee iyaga sabab ahaa in la soo daayo iyaga sabab ahaa in garanaysaa markiiba aan haweeye si sax ah lagu laabto marka waxaan sheegayaa ilaa aynu waxaynu u soconay oo ah yoolkeena ah in suuqa furmo oo shirkado kale soo biiraan oo suuq dawladnimada ay ku dhawaaqdo shuruucda saxda ah ay ku dhawaaqaan la yiraahdo suuq waa suuqaas waxa weeye cid doonta iman karta aynaynan waxa weeye ayna hawsha ka nasan karin cidna ayna aamusin karin sakariya baraha bulshada baad wax weeye inta badan ka hadlaysay dadku waxay isweydiinayaan heekooyadu waa shirkad Burco ka shaqeysa leerkana haween Burco in badan siinaysay kootadana waqti badan bay soo taxnayd bas sakariya baraha bulshadu taa ka bedelaya baa leeyahay mise waxa weeye waxa jirta arrimo kale dabadiisa ka socdo oo sakariya og yahay arrimo kale marka arrimaha kale ee dabadiisa ka socda maxay noqon karaan shirkad sakariya soo wadaa waa cid kale oo shirkada wadu la socdaa taa qodheedo la isweydiinaya maya waa dee way jirayaan oo marka dadka investorska ah ee maalgashadayaasha marka ay fursadaha markay arkaan waa run oo dad badan oo reer Burco ah oo reer Soomaaliland ahayn laakiin Soomaali ah dadka qaar ajaniba markay fursadda arkaan markadka markay arkaan way fahmi karayaan marka way jiraan dad aan wada xidhno oo xog iswareysan xog isdhaafsanay reer Soomaaliland qaar baa reer Burco qaar baan reer Soomaaliland baahayn laakiin waa investors waxay arki karayaan xeerarka dalka yaqaanaan in dastuur qodobka koobitanaad ee dastuurkeenu damaad qaaday in xeerka suuqan laftigiisa tamarta xeerka waxa weeye tamarta uu si laftigiisa damaad qaadayo in suuq xor noqdo oo isagoo xiganaya dastuurkeena oranaya dastuurka kama hormarno suuq xor in suuqu inuu dhacdo dadku fahmaan wacyigooda iyo capacity wacyigooda iyo garaadkooda aan wax ku darsado waxa weeye aanan dooda ka khaldamin shirkadda reer Burco ismaystaan reer Burco waxa weeye waxay u doodayaan aniguna aan ku hogaaminaya suuqaas u furmo oo xor noqdo way reer Burco helaan kala doorasho sida ay imka shirkado badan baa kala doorano oo adeeg ku tamaano marka quality-gu wuxuu yimaadaa markuu suuqa tartan jiro